maanta madaxweyne xasan sheekh iyo anjandihiisa wax ka beddelka dastuurka uma ahayna mid wanaagsan umana dhoollo qoslin si la mid ah ayaamihii baraarada ee gudbay mucaaradku waxa ay qabsadeen halka laga hago howlaha baarlamaanka aadan madoobana waa ku guuldarraystay inuu si dhammaystiran maanta u eebiyo mashruuca qabyatirka dastuurka aan heshiiska siyaasiga yanka bulshaba aan haysan kaasoo ay si xooggan ugu hulbinayeen muddooyinkii la soo dhaafay weedii ansax weeyana maanta hoolka waxba kama tarin guddoonka oo caraysan ayaa kuraasta sare ka huleelay in xildhibaanada mucaaradka gaar ahaana xubnaha saamaynta leh ay hortagaan golaha oo ay diidaan ajandaha dastuurka wakhtigani la furo waxaa la aaminsan yahay inaysan wax wanaagsan ahayn damaca madaxweyne xasan sheekh ee daaran inuu helo aag dhexe oo nolol siyaasi ah xukunkiisa uga helo kuna golo tago kowda bishan wakhtiga ay mucaaradkiisa is hor fadhiisanayaan in keliya fadhiga maanta guul laga keeni waayo waxaa sii wehdhisaa in lagu guuldarraystay in mudanayaasha baarlamaanka ka soko guddoonka golaha lagu mideeyo ajandaha ay keenayaan gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaana fadhiyadii ugu dambeeyey ee wadajirka golaha imaanin weli aamin lagama aha inkastoo ay sheegayso fiila soomaaliya inay ku guulaysatay inuusan aqalka sare xirin haddana wax kasta isbeddella xawli ku socda ayaa dhexda u taaganaa madaxweyne xasan sheekh cid difaacda waa waayay adeega keliya madaxweynaha maanta inuu waayo doonistiisa in golaha laga socodsiiyo keliya uma ahayn waxa uu raacday in mudanayaasha ugu badnaa ee difaaca ugu jira badankood ay ka siibteen oo diideen inay laabta u dhigtaan mucaaradkii abaabulnaa kuwana ay fadhigaba ka maqnaadeen taasoo muujinaysa wadajirka iyo ayaamihii baraarada dhammaadkiisii in la gaadhay oo dhabta aad loogu sii dhowaanayo fiidnimadii xalay madaxweynaha ayay ku qarxeen dekanooyin siyaasiya iyo kuwa dhaqaale oo kala dhexeeyey xubno ay horey uga wada shaqeeyeen wax ka beddelidii hore ilaa ballamo siyaasadeed oo meelmar noqon waayey in ka badan 30 mudane baarlamaan oo madaxweynaha kooxdiisa u badan tahay oo xalay la hadlay waa lagu guuldarraystay in la helo oo fadhiga ka qayb galaan sidoo kale qaar ka mid a kooxaha loo yaqaano ayaa warbaahinta si cad u mariyey mowqifyadooda ilaa doorashada gaadhay taasoo xanuun badan ku abuurtay dhinaca madaxweynaha 48 saac la soo dhaafay madaxweynuhu inkasta uu jihdi geliyey in wax ka beddelka la qeybiyo 5 maalinna lagu kala baxo taas waa shaqayn weyday oo dekanooyin siyaasadeedkii hore u dhacay ayaa galaaftay mucaaradku waxay sameeyeen bandhig siyaasi ah 36 bilood ee la soo dhaafay golaha ayaa ahaa masraxiyad ay mucaaradku ugu yeereen aad loogu jiray rabitaanka madaxtooyada oo damaceeda oo kaliya looga shaqeeyay guddoonkuna ay noqdeen xubno aad ugu dabacsan warka madaxweynaha oo lagu lamaaniyay fariimo danabaysan ilaa ay mucaaradka qaarkood gaarsiiyeen in xasan sheekh maxamuud isku noqday xil kasta oo dalka yaalay tallaabaqaadka mucaaradka ee ay maanta ku hor istaageen in la qaybiyo wax ka beddelka dastuurka waxay ka dhigan tahay in marxaladdu hadda ay ka soo gudubtay in dhaqarsigii iyo dana kalahaanshihii dhinaca madaxweynuhu uu dhammaaday taasoo ay faahfaahinaheeda saaka golaha uu ka dhex muuqday boob sawahan gacanka hadal iyo tallaabooyin ay dad badan ku sifaynayaan kuwa xildhibaanada qudhoodu isku muujinayeen ayaa fadhiga maanta hareeyay codka ugu dheerna ma ahayn saaxiibada madaxweynaha oo maanta kaliya laga helay wasiirka amniga gudaha fartaag oo isku gacan qaadeen saaxiibkiisa ay dhufayska ku wada jireen amintan oo kale 2022 xildhibaan Firimbi taasoo muujinaysa in doonida laga shiraacday sancadii saaka fadhiyada waa ka dhex shaqayn weyday Wafi Square waa mashruucii ugu weyn abid ee laga hirgeliyo xaafadda Parkland magaalada Nairobi waxa isugu jira guryo deegaan xarumo ganacsi iyo hoteelo five-star waa xarunta cusub ee nolosha casriga iyo ganacsigu ay ku kulmaan isku marna aad ka heli karto wixii faahfaahina afar ka mid ah kooxaha madaxweynaha u qaabilsan arrimaha sancaynta ama dullaalnimada siyaasiga ayaa ilaa xalay dadaalkooda ugu badnaa ku bixinaya sida ay u kala furfuri lahaayeen xubnaha mucaaradka waa isku dayeen ugu yaraan la helo jid loo mari karo in dhaqaale ballanqaadyadiisa la sameeyo laakiin sancadu saaka kuma sancanayn fadhigan guulna lagama keenin oo isku day xildhibaanada laga doortay Hirshabeelle iyo Galmudug qaarkood ay isugu dayeen inay aadan madoobe ku qanciyaan fadhigaba xir markii laga awood batay ayaa shaqayn weyday oo golaha waa la furay lama se gaarin ajandihii laga lahaa tallaabaqaadka aadan madoobe in fadhiyada uu ka mamnuuco mudanayaasha ugu badnaa ayaa hadda gudoomiyuhu qorsheynaya taasoo noqonaysa in xubnaha hagaya gebi ahaanba fadhiyada laga diido laakiin sida ay dhaqangal ku noqonayso oo lagu kaba in muddaxileedku dhammaad yahay iyo habdhaqannadii hore loo arkay ayaa dilaya dood kasta oo guddoonka goluhu ay xilligan keenaan sida ay qabaan dad badan oo arrimahan darsaya fariinta shirka Febraayo in golo midaysan maanta laga diiday qaybinta wax ka beddelka 5 cutub oo ka mid ah qodobada hortaminta leh ee dastuurka qabyada ee Soomaaliya waxa la aaminsan inay fariin u tahay in mucaaradku ay soo dhiiranayaan haddana ay gaartay amintii dhab loo wajihi lahaa xaqiiqada doorashada taasoo aysan madaxtooyada xumadeeda jeclayn
hal qodob oo madaxweynuhu kala haasaaka oo ahaa inuu isu tusiyo mucaaradka inuu weli awood ku haysto dhinaca baarlamaanka ayaa soo ilaatay taasoo golaha mustaqbalka u ah aagay ku dhiiran karaan hadda in dhabta la aaday iyo runta dhinacyadu ay isku arkaan warbixinta iyo nuxuraha soo jeedinta la qiibiyo xildhibaan xasan xildhibaanada gadaal jooga idinkoo maasan senator fartaag iyo xildhibaan xasan yare xildhibaan xasan senator fartaag meeshaada fadhiisa adoo maasan senator fartaag meeshaada fadhiisa adoo maasan idinkoo maasan mudanayaal senator fartaag meeshaada fadhiiso xildhibaanada warbixinta iyo nuxuraha soo jeedinta la qiibiyo xildhibaan xasan xildhibaanada gadaal jooga idinkoo maasan senator fartaag iyo xildhibaan xasan yare xildhibaan xasan senator fartaag meeshaada fadhiisa adoo maasan senator fartaag meeshaada fadhiisa adoo maasan idinkoo maasan mudanayaal senator fartaag meeshaada fadhiiso